السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا هبين عصب wellness with Ikram. عاو برنامج كأن سو قادنا وحو كسابسن yahay caruurta cudurka oo attention deficit hyperactive disorder la dhaho waxa waaye cudur oo laga helo caruurta koodii dadka waaweyn waa laga heli karaa laakiin caruurta childhood ka lagu bilaabaa markay cunuga uu yar yahay 3 jir ilaa 17 jir oo yahay cudurkaasi lagu magacaabi karaa inuu qabo so cudurka oo attention hyperactive disorder la dhaho haddii aan Soomaali u fasirno waxa waaye horta attention kelmadda la dhaho waxa waaye badan waa maqalna kulligeena markii aan dadka qaarkood aan ka hadlayno ama caruurteena qaar mar waxaan dhahaynaa waxaan uu dhug dheer yahay waa dhug dheer waxa waa maqalnaa waa baxsan waaye ama waa maqan waaye qofka waxa waaye markii hadalladaasi lagu magac qaab la dhahayo waxa waaye qofkaas attention-keeda ayar waa baxsan markii lagu dhaho way maqan tahay ama waa maqan lagu dhaho way maqan tahay well physically ma maqana qofka jirkeeda uu kula jooga way kula fariisaa maskaxdeeda maqan so attention-keeda ayar waaye marka attention deficit ka taas waaye and then waxaa jirta qof oo hyperactivity ugu darsan tahay hyperactivity waxa waaye qofka fudeed ugu darsan yahay so qofkii idoo dhug dheeri qabtay awal hadii fudeeda ugu sii darsanaa karo dad qaarkoodna ugu ma darsana dad waxaa jiraan oo attention-kooda fiican yahay laakiin fudud hyperactive qabaan so qasab maaha qof kasta inay fudeed iyo dhug dheeri isku darsato waxaa dhici karta qof oo ama fudud ama dhug dheeri qabto ama qof oo ilaahay labadaba ugu nimceeyay so qofkaasna way jirtaa so marka cudurka oo attention deficit hyperactive ama ADHD ee dhahaan Mareykanka maxaa keeno maxaa u sabab noqon karo cunug yar oo 3 jir ee cudurkaasi qabo waxyaabo badan oo sabab noqon karaan waxaa kamid ah horto number 1 markasta oo maxaa cudurkeena aan ka hadlayno waxa waaye generic oo noqonaa markasta family-ka ma ku jiraan geneska cidaanayta ma qabaan qof oo fudeed may qabaan ama hyperactive ama waxa may qabaan dhug dheerida may qabaan so haduu family ku jiro taas mid waaye mid kale waxa dhici karto qofka inay markii oo hadii mesela dadka caruur cunug yar oo gurgurashaal baranayo hadii lagu korinayo guri oo duq oo rinjiga waxa lead poisoning la dhahaa jiro haduu guriga rinji duq leeyahay oo rinjiga soo jajabay daadanayo cunugi gurguranay hadoo rinjigaasi cuno waxa cuduradaasi oo waxa dhici karto inuu ay ku dhacaan oo maskaxdooda wax gaarsiiyo waxa kale oo jirto hadii hooyada oo cunuga uurkiya leh cunugi oo uurkiis markay leedahay hadday sigaar cabtahay ama khamri cabayso cudurkaas waa laga heli karaa of course cunuga hadii oo dhaawac maskaxda madax ka gaaro cunug yar haduu dhaco ama jug weyn gaarto waa sabab noqon karta waxa kale oo zaaid noogu ah hadda marka wadamada galbeedka ay joogno waxa waaye wax food additive la dhaho ama cuntooyinka waxyaabaha chemicals-ka lagu soo daro so masalan midda ugu weyn hadda waxa waaye waxa oo artificial food coloring la dhaho cuntada badankood like chipsiga camalka soo qabo qaarkood color ku soo darayaan kalaradaasi way u sabab noqon kartaa inuu cuduradaas oo maskaxda oo attention deficit ka caruurta gaarsiiyo so hadda waxa ka hadan waxyaabaha keenan generic waayaan dhahnay ama food lead poisoning rinjiga oo jajabay caruurta cunayaan sigaar yacab ama khamri hadee hooyada ahayd cunuga wuu ku dhici karaa waxaasayto markay uurka lahayd hadee cabaysa sigaar ama khamri waay ma aha hadee iska tahay marka iyadoo uur lahayn iyo of course tabcan cuntooyinka qaarkood dadka waxay dhahaan marmar sokorta way u sabab way keentaa ay dhahayaan daktariyaalka iyo researcherska waxa mahayaan any evidence wax oo support gareynaya inuu sokor cunug ee u hoos garay karto inuu dhug dheeri u keeno ama fudeed u keeno ma jirto taasne so marka calaamadaha lagu garto maxay yihiin cunug hadoo ADHD qaba sidee aan ku garan kartaa so calaamadahaneeto waxa maaha kulligood maaha laakiin qaar idin sheega insha Allah as dhaha important waaye ama at least aan arkay wixii kale tan markaas waa daktarkaaga weydiin kartaa ama kala tashan kartaa so mid koobaad waxa waaye
qofka oo ADHD qabto waxaa la dhahaa waxa waaye distracted very easily waaye. So distracted very easily markii lagu dhahayo waxa waaye qofka iyadoo meel usii jeed si fududa loo soo jeedin karaa. Yani iyadoo qofkii adoo la hadlaysid ama mawduuc important ah ka hadlaysiina inta wax ka dhacaa ama magaceeda meel kale ka maqlaysa qofkii maskaxdeed way wareegsanaysaa sheekadii dhinac kale u jeesatay hadal kale gashay waaba ilowda ina adi agtaagneed ama aa la hadlaysay. So that's distraction waaye. So midda kaleeto waxay dhibaato ku qabaan directions, tilmaamtay ku xun yihiin, tilmaamta way ku adag tahay. waxay qabaa waxaan dhahnaa anaka wax oo daydream la dhahaa jiro caruurta markii oo cunug camal iskoolka oo fadhiyo ama xataa soo guriga kula joogo waxaa jira ilmo aan dhahayno kuwa dadka ficlan oo waxa waaye maqanka waaye waa kula fadhiyaan jirkooda kula joogo laakiin maskaxdood way maqan tahay sare dhisooyin ay duminooyin iyo ku ag fadhiyaan adna waxaa ka og tahay malaha. So kuwaasi waxa waaye daydreamers aan lahaa iskoolka camal markay fadhiyaan waa deentooday qabsahayaan meel kale aadeen darsiga dhan wuu dhaafay ama nuskiis at least wuu dhaafay. So taasna calaamad waaye. waxay qabaan dhibaato oo finishing tasks la dhaho. waxaa arkaysaa masalan cunuga waxaa soo fariisinaysaa miiska homeworka qoraa dhehaysaa maanta 10 saac marka iskoolka imaaday ilaa caawa 5 saac halkii homework uu qorooya. maxaa dhacay maxaa u sabab waa just waxa waaye maskaxdiisa baxaysa soo fadhiyo ama meel kale u jeesana qofkii inta soo marto la hadlaa kan ku ciyaara kan taabana waqtiga dhan waa socona isaga homeworkiga dhameynin. So taasna waxa waaye difficulty homeworkiga inay dhameyn ama finish any task. xataa waxaa arkaysaa xataa marmar fiirso waxaa arkay qof oo alaaban dhaqaaya ku leedahay alaabta 3 saxan markay dhaqdo waa dhaqaaqaysa haddana iska bixi qaaday guriga xaaqaysa haddana guriga dhigan dhaqoobi bilaabaysa. waxaa arkay guriga dhan shaqadii oo dhameystirneen shaqo kasta waa la bilaabay laakiin ma dhamaanin. So taas calaamadahay ka mid tahay. waxaa la dhahaa ilmaha masalan yar waxa waaye waxeedu dhimahan toyskooda buugaagtooda wixii ay la baxaan ma soo celinayaan waa meelay ama ku soo iloobayaan ama waa just organized dad aruursan ma aha waa kala daadsan yihiin. So ma kala ogaan karaan alaabtood meel ay dhigeen iyo meel ay geeyeen. waxaa kaloo jirto dadka they fidget aan dhahnaa anaka fidgetka waxa waaye qofka markii waxa waaye waa aragtaa adihta waxaa dhehaysaa marmar qofka muluq badan ama meel naga fariisto qofoo maanta dhan fariisahayninba oo maanta dhan حتى waxaan qoraa hadoo ku dhaho waa istaaga biyo soo caba waa istaaga masqulo aada waa istaaga hebel wala soo hadla just waxa waaye ma fariisan karo maskaxdiisa meel ma ku aadin karo. So maanta inuu isxoqo ama muluq leeyahay ama socdo waaye. So taasna waxa waaye tan oo fidgerin. mid kale arkaysid waxa waaye ilmaha badanaa yaryarka lagu arkaa 3 jir 4 jir markay yihiin ilaa 5 jirka non stop cunug haduu hadlaayo oo kala joojihaynin maanta dhan hadlaayo xataa marka isku daydid in hadal kala joojisid ade ama aso dhex gashid wili uu hadlooyaa le ma dareemo hataa in aad hadlaysid waa hadlaale non stop. So taas calaamadahay ka mid tahay. waxaa jirto wax kasta waxay jecel yihiin inay ku ciyaaraan wax hore ha ahaado ama wax oo important u ama wax oo weyn ma jiro wax kasta waa ku ciyaarayaan. So waa ciyaar jecel yihiin. they like inay orod zaaid sabarkooda aad u yar yahay ma sabri karaan. mid kale waxa waaye hadalkooda markii ay hadlayaan waxyaabo badan oo inappropriate iska soo bixinayaan. So masalan just a simple example waxa waaye qof hadii ay arkaan oo masalan buuran ilmaha manaxayaan waxay dhahaan oh my god qofkaanayda aad u buuran tahay camal ay dhahayaan. waxa waaye hadalkaas appropriate ma aha cunug kasta hadalkaas ma iskaga soo dhawaaqo laakiin ilmaha waxa waaye oo ADHD da qabaan just filterkii oo hadalka waxa waaye inuu maskaxda dambe ka imaado oo inta lagu soo filter gareeya filterkaas iyada dhana ka maqano afkooda waa kasoo baxaa le wixii. Sometimes markay koron yihiin oo hadal qalad oo kasoo baxo they feel bad way ka xumaanayaan qofkii inay hadalkaas dhaheen ama qof ay garaxaysteen laakiin markay yaryar yihiin ma fiirinayaan waxaaseyto. iyo waxay kala lagu arki karaa inay dhibe waxay ku qabaan inay control gareeyaan emotionkooda waxa waaye waxaa hadii wax yar laga haleeyo waa xanaaqayaan waa qaylinayaan maanta dhulka isku garaacayaan albaabka turtuurayaan. So just difficulty with controlling their emotions why markii aan ka hadalnay maxaa laga qaban karaa runtii waxa waaye horta ani hadii teeda tahay as a therapist qof oo ilma oo saan camal la shaqeysay daawo waa jirtaa ilmaha waana lagu daaweyn karaa. and so طبعا of course situationka hadii uu
istaahilo inaad daawo qofka cunuga u baahan yahay dan yes daawadiis inaad daawo la siiyo waaye laakiin waxyaaba badan oo waxaa jiraan like behavioral therapy la dhaho like structure cunuga inaa loo suubiyo organization lagu caawin inuu organized ahaado waxyaabahaasita dhan way caawinayaan cunuga marka daawo qasab ma aha inaad laga bilaabo it's not the first thing it should be wax ugu dambeeya inay ahaato haddii wax kasta aa isku dayde as a waalid adoo markaas natiiga aa ka keeni weyseen markaas cunuga daawaha la siiyo it's important mustaqbalkiisa cunuga inuu la fiiriyo ma la rabo mustaqbalkiisa inuu dayaamo just because wax oo laga daaweyn karo ama laga caawini karo dhibe hor istaagi so laakiin kala tasho therapist ama even daktarkiina kala tashta anika insha allah idinla talin doonaan so taas waxay ahayd sida oo caruurta cudurka ADHD markii caruurta laga helo dad oo waxaa jiraan marmar adultskana waa laga helaa marmar like cunugii yar waxaa jira ilmo yar oo la daaweynin oo markay ku koreen oo ku weynaadeen markaa weynaatid waxyaaba badan oo waxaa jirta aad control kartid oo yani oo dadka saas ay hor uga arkeenin so marka laakiin dadka oo ADHD da qabaan still eco adults waxaa arkaysaa dhibaato inay ku qabaan organization misorganize karayga wax ma like dad oo organized ma aha shaqada waa ka daahayaan markasta last minute ay cararayaan waxaa arkaysaa shaqooyinkooda waa bedelayaan oo ma ku fiicna inay maskaxdooda way ku adag tahay inay toosiyaan hal shaqo waxaa sometimes hataa iskoolku ku adag yahay marmar relationship hataa cilaaqada oo yani inay qof relationship la suubsadaan ama xiriir lala yeeshtaan kastoo way ku adkaan kartaa marmar so marka waxa waaye haddii ay heerkaas gaarsiisan tahay of course طبعا qofka markay adult aad tahay oo shaqaysan la-dahay ama ismueda ama mustaqbalkaaga aa fiirsan la-dahay waa dhibaato weyn ay leedahay marka it's very important ina definitely daktarka la taashatid oo haddaa daawo iyo waxaa u baahan tahay ama lagula qaban karo lagula qabto si oo mustaqbalkaaga u fiicnaado insha allah waxaa ka hadalnay attention deficit hyperactive disorder ama maxaan ka hadalnay qofka dhugdheerka iyo dadka fudud iyo caruurta waxaaseyta cudur oo caruurta markay yihiin ku bilowdaan waaye cudur oo caruurta ku bilowda waaye xataa markii oo adoo weyn daktar u tagtid oo cudurkaaseyta laga baarayo su-aalaha badankood lagu weydiiyahay waxay ku saabsan tahay markaa ilmo ahayd saan ma samey jirta markaa ilmo ahayd saan ma samey jirta alla rafta amis waxay jecel yihiin inay la hadlaan waalidkaaga daktaryaalka because waalidkaaga of course hooyadaada ma iloobayso waxaa suubi jirta marka بواك عذرك attention deficit disorder deficit hyperactive disorder هذا سؤال قبتي نقل سو حرير أما يوتيوب كهوس أقصو قرر كرتا سؤال هاي كمان تجاجا أما ها كسو إيميل جرين كرتا wellnesswithikram@gmail.com وإنتاس إينا بتقليو إن شاء الله وإنه خميس تدنبه إلوين إنا فيديو subscribe like and thumbs up نسيسد إن شاء الله definitely share because the more I share كريسد the better إنه اسمه the information كإنه دتك جارة على الربع وحاول information كانت لو سوقلنا إنه دتك جارو so please share قرأي when you can ومهتسنتهين وإنه خميس تدنبه إن شاء الله wellness with ikram السلام عليكم ورحمة الله وبركاته